السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيري meeshaan u jeedin bal fiiriya ilaa ay xagga wax duwan waxa way coos way cooska makiinadaas cagaftaas lagu shaqeynsiina waxa way cooskii hadeer samarka iyo winterka waqtiga u dhaxeeyay baxay Soomaali wax lagu dhaxma aqaan xagaa in lagu dhaho ideer in labadaas xilli mid way Soomaaliga marka xilligaas cooski baxay way hadeer ka bacdi kuleelka yaa bilaabanayo coos fiican xogaa aad uma soo baxay kadibna qabowga la galaa coos ma jiraayo marka cooski waa kana saana loo duuba waxa way asagii dhan wadadaas inta la soo mariyo saan loo duubo duubitaankaas uu saas u duuban yahay u jeedaa muuqaalkan aduubo duubitaanka laga wadayaa wareegaas la dhahaa wareegisaas loo wareejiray duubitaanka wada marka saas inta loo duubo macnaha cagafta hadhow shaqadeeda way qabsatay gaar kale taa imaanayo bahash ayako sidaas ah waa la duuba waxa la dhigaa waxa lagu xareynaa maqaasiin weyn ama hool weyn lagu xareynaa hoolkiis weyn hadhow markuu coos uu si jirin oo xilligii winterka ahaa la gaaro markaas haduu Ilaahay idmo maalin walba bahash ayako ka soo bixis u jeeda cooska makiinadu way qaadaysaa sidoo inta duubto ay gadaal ka soo deynaysa asagoo saas u habaysan marka ala kulli xal coos markii saas loo duubo oo la habeeyay gaariga lagu qaado maqaasiinka ama hoolka la geliyo xilliga waxa imaanayo qabowga ahay xilligan kuleelka hadeer oo wax coos badan ay soo bixeen marka dadkan waxay sameeyaan quraankeena u jeedaa diinta islaamka quraankeena wixii loogu sheegay حال هاي النبي يوسف محو كو نقضي قسنجي اما حال دها وزيركي دقالها بقرتويدي خليغاس جرتي محو كو نقضي النبي يوسف ريدي او فسيراي لهاي قرانكنا uu sheegay waxa imaan doonto waxa jira 7 saac oo lahaay 7 saac nina wuxuu yiri waxa ku reeyay 7 saac أني كاريد سيفي عن معناها قصدي سيفي عن التقانين تتوسع أو عطعته أو عنيسه تتوسع وعيلين والنبي يوسفنا عليه الصلاة والسلام وكوفة سري حائمان دونته تتوسعنا برواقع كدبنا تتوضع سنة وبرواقع ده وحكدم بينتهم تتوسعنا أو أبارة marka 7 sano barwaaqada ah in afaarahan la duubto way waxa u jeedaa dhaqaalaha in si qorsheysatid way meel dhigatid haduu Ilaahay idmo si hadhow markay abaarta ay imaato waa kaasa waxa si duubatay oo meesha ku yaalay cuntid xilliga aad kahay laakiin maalin kasta wixii ku soo galaba 4 shilin ku soo gashaba 4 saacadood hadaa afka ku ridito oo baritan hadana gacanta ku soo taagan tahay waxaad yiraahdaa isku qorsheysanin waa dhibaato way marka shakhsiyan mid ahna ka baro xogaaga maalmahay wax ku soo galayaan ku tasho inay ka dambeeyaan karaan maalmo aysan wax ku soo galeynin sidaas darteed waxa u sii kala qaybso maalmahaas xogaa wax u sii dhigo si ugu sugtid maalmihii kaleeto haduu Ilaahay idinkiisa irsaaqada asaga bixiye maalmuhu wax ku soo galin lahaay ka hor laakiin adiga waxa waaye ina irsaaqada Ilaahay ayaa bixi bis aad dhixin laakiin irsaaqada Ilaahay markuu ku siiyo qorsheynteeda aad baratid wax meel kale dhigatid baritana oo macnaha aala soo baxdid waxa qorsheysatay oo meel dhigtay haduu Ilaahay idmo oo aadan baahi ku gaarin barwaaqo ku gaartid marka anoo meeshaan iska maray hadeer arkay arin cajiib iyo la noqotay ma sha Allah aad ugu helay noqotay adinkan waxa isir bal akhyaarta ayakana ha ka faa'iideystaan haduu Ilaahay idmo kuwaas marka ayaka oo dhan xaq yeelan waxa idin leeyahay marka waqtigiina iyo maxaan dhihi jiray dhaqaalihiina sida u kala dhaqaaleysan lahayn u kala maareysan lahayn barano biidnillah balanteena waxa idin leeyahay inta nool waa raadsan reeb wassalaamu calaykum